salaamantiin bulshooy madkalaha ka dhowaada walka saabsan Siid Iise geekimay walku baradaane arrinta ka saabsan maadaama Siid Iise gudoomiyagii Bilaatos oo deegaankaas hukumaay waldambe usukuwaay sababta hukumi inay Siid Iise la dila gudoomiye Bilaatos may haayay gudoomiyaga arlaadaas oo wakiilka unku dowladda Roomaanka oo suldaan haay markaas ama boqor haay madaas kaysar Tiberius lankoole eraay gudoomiye Bilaatos madii argi Siid Iise inii waldambe oo usleeyay injarna iyo may faday inii isku dhiya ilowse hogaamiyaalkii reer bani Israa'iil iyo foodi iyo buuqiyeen walka saabsan arrintaas iyo may ka agrisadaane kitaabka Yohana jabtarka 19 aayada 12 mayna lataa sidon madaas ku damba gudoomiye Bilaatos ma iska sharibaayay inii Siid Iise isku dhiya ilows hogaamiyaalkii reer bani Israa'iil intii qayliyeen iyo may ereena gudoomiye Bilaatos hooba adalanku isku dhiyada may tilmaamaase inii adaruntii suldaan wiinaaga kaysar wakiilshay hayna runtii lan walba oo suldaannimo sheegada may lutoo'ayaa lan falaaga oo kaysarka caasi eedaanka ka kiyeen gudoomiye Bilaatos inii Siid Iise istilaabta ka dila maadaama edayti inii Siid Iise sheegadi inii useeyo suldaan amaba boqor oo nidaamka meelaasyaalina iyo hoobalankoba boqor sheegada uskoorkooyaw dowladda wiin oo Roomaanka ilowse sida runta Siid Iise boqornimaadiis mahayna boqornimaada dadka gorodaayaan ilows usumeeyaa boqorka runta oo dadka adduunyaada dhan badbaadiyay oo ruuhiyanka madaasa gudoomiye Bilaatos eedun obsadi oo may ka obsaday inay dadku rabsho kiyaan oo dowladda Roomaanka deegta dooga meel ka dareera gudoomiye Bilaatos oo haay gudoomiyaga arlaada ama gobolka Yuudiya oo dhulka reer bani Israa'iil iyo waanka damboyti ka qasbanaadi inii amarsho qaadada oo waana nuglaada walaa iyo Liing hataba arrintan walka saabsan iyo may ka agrisadaane kitaabka Matayos jabtarka 27 aayada 24 mayna lataa sidon kudamba gudoomiye Bilaatos may goroday inii dadka go'aansho bedela korna oo rabshana ka hayta saas dartiye Bilaatos intii weelkoo biyo dirsidi iyo may galnyaashay ku dhigiday arrintaas hukunka Siid Iise shiimoodii hortiye mayna eray runtii analankun dhiigjay galnyaagaya ku dhigidi isingley dhiigjay korkin haado doono dhaganka reer bani Israa'iil Bilaatos galnyi dhigshay may tilmaamay inii uso binaanka ku inii lankun dambiiliga hayna lidila saasijee iyo meeray isinwa korkin saaranya dilka dhiiga lankunba sikasta haato ebehey hooba fadawjay malaa'igtiis iyo handirafadi silindilna alanshay ilowsa tangmay haytay fadawka aawka iyo alanshayba lankoona hor suruma korna ebehey fadawshay sababto istilaabta Siid Iise anka dhimadi amaba usoo dambiila hayna lin hukumi iyo may haytay sidii ani ada kaseeda fadhi jinaada hooba rumaysan inta shaleedis oo jinaada la kaseeda may leeyaa ni rumaysana dhimashooda iyo keedhan ku noolaadowka dhimashooda Siid Iise oo darteen weeli hataba bulshooy aysiin kala dardaaramay inay aysiin dib u lahaataan oo waan hubsataan walaa fadowka eedahan mahadsantiin